xubno ka tirsan ururka dekada magaalada Berbera ka xamaalay ee loo yaqaano Geel A iyo Geel B oo maanta shirkan jiraayid ku qabtay magaalada Berbera ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadallo hore uga soo yeedhay maamulka cusub ee ururka Geel waxaana ay sheegeen in dawladda Soomaaliland iyo dekadaba ay si habsami ah wada shaqeeyaan ururka muruqmaalka ee ka xamaalay dekada Berbera waxay sidoo kale ay sheegeen in ay dhaqaalahooda iyo adeega ay qabtaanba ay dawladda Soomaaliland mas'uul uga ahayd tan iyo waqtiga ay ka shaqeynayeen dekada Berbera sidaas awgeedna ay diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan shirkadda dekada maamusha ee DB World iyo dawladaba xubnahan shirka jiraayid qabtay waxa kamid ahaa gudoomiyihii hore ee ururka geelayaasha ee magaalada Berbera Ibrahim Daray waxaana hadaladiisii kamid ahaa qodobada shalay tooyin aan hay waay inaan ka xal bixino aniga iyo nimankan la socda qayb kamid ah in ururkii geelaha ee shaqaalihii ahaa shaqaale weynii kamid ah waxa kamid ah waxay wadiimanka odayaashii shalay hadlay yiraahdeen waxay ceebeeyeen gudida dekada marka nimanka way ceebeeyeen wax ay dhibaato ah inoo geysteen ma jirto wax alla waxeen ay nimankaas lacag ah naga qaadeen ma jirto way noo dhiciyaan gudidaas lacag hore noo dhicisay lacag hore noo dhicisay dhiibo lacag bay noo qabataa waxay nooga qaadaa cid alla cid lacag naga maqan tahay nooga qaadaa waxa jirta inay dhiibo wall nooga qaaday ganacsatada sibir furna lagu siin jiray labis markii hore oo lacag yarna lagu siin jiray oo lacagtaas muddo dheer naga lumaysay awoodaan ku qaadanaan weynay intii dawladdu ay ku wareejisay ba ay naga maqnayd ayay dhawaanaan ku la heshiinay waan ku wareejinay way nooga qaadeen saddex markab ayaa waxay nooga qaadeen lacag 800 milyan gaaraysa waanan hore u qaadin jiray marka waxa maskaxda aan gelin oo marka dadka aan maskaxda u gelin maalinta ay wax noo dhicinayaan ama iyagaana dhalay baan oranayna wadi boolana lashay maalinta aynu lacag wax kale ku qabsano khaldan ku qabsanana waxaan oranayna waana la dhacaya arrinka xaal baan ka bixinayna arrinka xaal ayaan ka bixinay ninka la yiraahdo in Xasan Cali Cawaale way qaar bay isaga u taabteen ninkaas waa nin kamid ah gudida wax gaar ah kama aha mooji wax loola soo baxayo anagu geeli hadaan hayna ka xaal baanu bixin ka bixin xaal baanu siinay waxay ku sheegeen in xitaa jaanib ay ku sheegeen jaanib maaha ina Xasan Cali Cawaale waa la yaqaan waa dadkii awooyaashii madaxda ahaa ilaa Ingiriiskii dadkii Soomaaliland madaxda waxaan jiray way anaga geeli maanta uma yar qabna nimankani waa niman cadaysan niman meel kale ka cadaysan nimanka saa u hadlaya anigu waxaan u haystaa inaan niman dan geeli toos u wada aan ahayn sida runtii ma aha dan gaarabay waxay dhahay lacag bana laga dhacay oo nalaga dhacay nalaga ma dhicin anigu waxaan ahaa khasnadkii ugu horeeyay iyo mas'uulkii ugu horeeyay ee lacagta geelaha markii khasnada loo sameeyay la qabanaya qabtay ana la igu bilaabay 2002 baa la igu bilaabay aniga lacagtii sidii baan u haynay DB World markii lagu wareejay DB World way garan weyday lacagta dawladdu leedahay halka ku hadhay way garan weyday dabeed anaguna ma aanu sheegin waxay noqonaysaa arrinkaasu inaan wax lacag maanta nalaga dhacay aan jirin lacagtaasina ay hel lacag dekadu lahaan jirtay oo ka soo hadhay oo shaqaalaheedii wadata shaqaalahaas geeli marnaba may noqon imtiiday kamid ahaan jireen waa farsamo yaqaanin imikana sidii bay loo joogan iyagana hadii war loo doonto waa la heli doonaa anigu waxaan hayaa xog badan baan hayaa sir badan baan hayaa 18 sanadood baan mas'uul ah halka joog oo aan geelaha oday waxa sirtii baan hayaa lacagta xitaa waxay lacagtaasi ku bixi jirtay baan hayaa ilaa 2000 ilaa yoomin hada imika ilaa bishii 11 iyo ilaa 2003 sirteedii baan hayaa dhugmantiyadii baan hayaa waraaqii baan hayaa halkay lacagta ku bixi jirtay hayaa waxay ahaan jirtay baan hayaa magaciyadeedii baan hayaa cidii kala qaadan jirtay baan hayaa hadii la iga baahdo in xuquuqaal dambe inta loo sii dhaafo ama la deyn waayo halka la farafareynayo hadii ma la deyn waayo waan soo bandhigaya xubno kale oo iyaguna ka tirsan ururkaasi oo halkaasi hadalka isu doomaray ayaa waxay yiraahdeen weligeena geel aan xukumi jirtay anaga tikada aan xukumi jirtay anaga shirkadda lama xukumi jiray nimanka ay ka hadleen tan ay leeyihiin bay ka hadleen danta ay ka hadleena waa mid ay ku qarayeen hadii lacagna laga qaadina ma jirtay ayaga sita mid aan lahayn bay sitaan iyagu shirkaddu way mahadsantahay xaal baanu siinayna ninka ay calaamadeen waa Soomaaliland waa aqoontii Soomaaliland waa aqoontii Berbera ninkaan xaal baanu siinay
الحمد لله رب العالمين waxaan ku hadlaynaa arrinkii shalayto kulli hortay baan laga hadlay laakiin waxa weeye marka horeysa anagu geelaan xamaal soo jireen nahay waxa iyaga waxa kale waanu kala naqaan waxa kale jira dekada waxa haysatay shirkadda loo dhiibay waxaan raacay arrinka shalay ee magaraysa lagu ceebeeyay nimanka gudida nagu ma qabno waa niman haral noogu dhiciyay wax noola qabtay waliba ninka la ceebeeyay gaarka loo cabeeyay in Xasan Cawaale waa nin dayax way waa nin aqoon waa nin cilmi leh waa nin dalka u dhashay waa nin dadka ka naxaya way anagu markaan geelinahay waxaan ogolahay in DB World aanu ay lacagta noo qabato waxaan leenahay eeta ayagu halka ugu soo jeediyeen taayada xal baan ka bixin ninka ay gaarka wala baxeen in Xasan Cawaale waa ninka koobaad ee ku jira meesha haddii ay tahay geela hadalkii iyo haday meel kale tahay tacabo farabadan horu noo soo qabtay aad baan uga mahad celinaa ninka ay gaarka wala baxeen xaal iyo boortis baan ka siin hadalku isagoo la yiri ana wax lama idhaahdo nimanka hadle waxaan oran lahaa Soomaalida waxa ku mahmaada ama buur haw ama buur baa lagu tiirsanaada war buur ma lihin 5 iyo 3 sano lagu wareejiyay nimanka meesha DB World marka waxaan soo dhaweynaa DB World lacagta ay noo qabatay iyo cidii la wareegtayba waan soo dhaweynaynaa waxaan oran lahaa DB World sida ku ula wareegteen noola wareega in nimanka odayaasha waxaan oran lahaa war hana xarano lumisayna hana luminina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan raali gelin ka siinayaa nimankii waxay tolay gudidi ay shalay maxay tolay maamulka geele ay halkan ka dhalacaynayeen wax laalo wax naga maqan ma jiraan haba yaraatee sidii awal baahayd ay lacagtu nimka DB World lagu qabataa waxa weeye dadka anaguna DB World waan soo dhaweynaynaa gacmo furan waan ku soo dhaweynaynaa madaxweynahana fariintan u dirayaana waxa weeye madaxweyne kursiga ku wala fadhinaa ومقالي مقال أيام الله مدحويني ويكون مقدم وحولبا تذكر هذا اللي ويا المدحويني مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرن كاسمايلان بربرة